Asalaamu calaykum. Iyada oo ku dhowaad 30,000 kafateeriyada amaba maqaayadaha qaxwaha caalamka oo dhan, Starbucks waxay noqotay wax ka badan magaca qoyska. Koobabkeeda caanka ah oo badanaa qurxiyo magacyo qalda ilaa espresso. Starbucks waxay kasoo bilaabatay dukaan ku yaalay Seattle, Washington, oo lagu iibin jiray miraha qaxwaha amaba kafeega ilaa uu gaaray ganacsi gaaraya $80 bilyan 47 sano ee lasoo dhaafay. Iibinta Starbucks waxay ka dhigan tahay 57% wadarta suuqa maqaayadaha qaxwaha caalamka oo dhan. Haa, 57%. Haddaba sidee bay ku dhacday tani? Maxay tahayna qaxwaha lagu sameeyo? Su'aalahaasna jawaabahooda insha Allah waxaan ku sharxi doonaa muuqaalkeena. Haddaba daawade intaan muuqaalka guda gelin ha iloobin inaad channelka subscribe saarato, waayo waxaan soo dhignaa muuqaalo tayo leh sida kan aad daawanaysid oo kale. Mahadsanid. Sanadku waa 1973. Saaxiibadii kollejka Jeff Sejour, Terry Baldwin iyo Gordon Bowker waxay go'aansadeen inay galaan ganacsiga qaxwaha. Waxay ka heleen la taliye Alfred Beats, aasaasihii Beats Coffee iyo ninkii mas'uulka ka ahaa keenista qaxwaha caanaha ee Mareykanka. Wuxuu ogaa warshadaha kafeega gudaha iyo dibadda, wuxuuna sidoo kale ahaa ninka ugu aqoonta badan waddanka xagga kafeega. Marka caawinta Beats, saddexda saaxiib waxay ka fureen Starbucks, dukaan lagu iibiyo kafeega miraha ah iyo cunnada fudud. Xaruntooda caanka ah ee Seattle Pike Place Market. Sanadkii 1971, Beats wuxuu siiyey dhalinyarada hal-abuurka leh digirta kafeega oo la dubay, oo wuxuu kula xiriiriyey kuwa dalalka kafeega ilaa ay ka samaysan karaan. 10kii sano ee ugu horreeyay, aasaasyaashu waxay ka fureen 5 goobood oo kale Seattle. Waqtigan xiriirka ah macaamiisha qaxwaha casriga ah ayaa laga yaabaa inay ogaadeen maqnaansho muuqda ee cabitaanada qaxwada dhabta ah. Taasi waa wax ku saabsan dhaqanka qaxwaha 70-meedyadii. Runtii kama jirin baarar kafee ah, sidoo kale ma jirin baahi badan oo loo qabo cabitaanka ku saleysan espresso. Qofna ma uusan filaneyn inuu ka heli doono cabitaan dukaan kafeega Starbucks ilaa 1980 kadib. Diiradda ugu horreysay ee Starbucks waxay ahayd u keenista digir tayo sare leh macaamiisha, kuwaas oo aad ugu bartay bunka degdega ah. Shirkaddu waxay shaqaaleysiisay agaasimihii ugu horreeyay ee xirfadle ah, kaasi oo u qaabilsanaa qaybta suuq-geynta iyo iibinta. Ninkaasina wuxuu ahaa Howard Schultz. Wuxuu garan kari waayay sababta Starbucks u iibin weyday cabitaanadeeda. Sanadkii 1983, Schultz wuxuu u safray Talyaaniga, wuxuuna soo noqday isaga oo wato fikraddaasi oo ah inuu u beddeli doono baararka qaxwaha ee laga qaxweeyo maqaayadaha. Starbucks tijaabadu waxay noqotay mid guuleysatay. 4 sano kadibna, Schultz wuxuu iskaashi la yeeshay maalgeliyeyaasha, wuxuuna ku iibsaday Starbucks $3.8 milyan. Xilligaas wuxuu jiray 34. Schultz wuxuu raacay istaraatiijiyad fidin xoog leh. Markii shirkaddu soo shaac baxday ee 1992, waxay lahayd 165 dukaanno. Markii la gaaray 1996, waxayna furtay in ka badan 1,000 goobood oo ay ku jiraan maqaayadihii ugu horreeyay ee caalamiga ahaa ee Japan iyo Singapore. Kobaca ayaa wuxuu noqday mid degdeg ah oo kaliya 3 sano kadib, Starbucks waxay furtay 2,000 oo goobood. Mar alle markay heleen model ganacsi oo shaqeeyay oo loo turjumay juqraafiye kale, taasi oo dhab ahaantii ayagana fursad u siisay inay dardar geliyaan koritaanka. Schultz waxaa laga beddelay agaasimaha guud, loona beddelay guddoomiyaha fulinta sanadka 2000. Xilligaas oo Starbucks ay maamushay 3,500 oo dukaan oo in ka badan 10 dal ah. Inta u dhaxaysay 2000 iyo 2007, tirada maqaayadaha Starbucks ayaa ka badan 4 laab, laga bilaabo 3,500 ilaa 15,000. Muddadan, shirkaddu waxay furtay celcelis ahaan 1,500 oo dukaan sanad kasta, oo ay ku jiraan 2,500 oo ah sanadkii 2007 oo keliya. Iibinta ayaa kor u kacday 2 bilyan ilaa 9.4 bilyan. Macaamiisha ayaa si zaid ah ugu qulqulay koobabka jikadooda, koobabka waraaqda ah ee lagu tamashleeyo,
laakiin markan Starbucks waxay ku dhacday darbi From the impact of the 2007 recession, not burbur even the dhaqaale. one-time dark Sanadkaas ayaa haddaba koritaankii degdega ahaa ee Starbucks istaagay, isla markaasna qiimihii saamiga ayaa hoos u dhacay 50% maadaama macaamiishu lacagta caydha ku jirto ay kala leexdeen caadaysiga kafeyga. Starbucks ayaa dib u soo ceshatay Howard Schultz. Warkani kaligiis wuxuu sababay Starbucks saamiga inuu kiciyo 9%. Schultz wuxuu joojiyey kabaca, wuxuuna diiradda saartay khibradda macaamiisha. Wuxuu xiray maqaayadaha in ka badan 600 2008 iyo 300 kale 2009. Wuxuuna sidoo kale shaqada ka joojiyey ilaa 6,700. Bil kadib soo laabashadii Schultz, wuxuu amar ku siiyey Starbucks in la xiro dhammaan goobaha Mareykanka hal galab si uu dib ugu tababaro in ka badan 135,000 oo shaqaale oo ku saabsan sida loo sameeyo saxiixa espresso. Ujeedada Schultz ayaa waxay ahayd inuu xusuusiyo macaamiisha waxay ku jeclaayeen astaanta isaga oo sameynaya bakhaarada iyo khibradda. Ma ahan oo keliya meel laga helo kafeyga degdega ah, waxay sidoo kale joojiyeen iibinta sandwichka quraacda. Soo celinta Schultz ayaa shaqeysay, oo mar kale Schultz ayaa kor u qaaday shirkadda. Shirkaddu waxay mar labaad kor u kacday in ka badan 43% sanadkii 2009. Intii lagu guda jiray beddelkii Schultz ee maqaayadda, Starbucks ayaa si dirqi ah ku furtay dukaamo cusub, laakiin xawaaraha ayaa mar labaad la soo qaaday 2012 ilaa 2017. Starbucks wuxuu furmay ku dhawaad 3,000 oo goobood oo dheeraad ah, isaga oo sanadka ku dhameeyay 20,000 maqaaxiyo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay dib noogu soo celinaysaa dhibaatadii ugu horreysay. Daaf badan, gaar ahaan magaalooyinka, ayaa ku faafay iibka duuban. Sababtoo ah Starbucks waxay leedahay goobo badan. Macaamiishu ma ahan inay daacad u ahaadaan hal kaliya. Kordhinta dhibaatadan ayaa beddelayso doorbidyada macaamiisha. Dadku way ka aamusaan bambooyin koloriin sokor leh. Macnaha sokorta ayaa ku badan, kaas oo noqda mid ka mid ah istiiqyada Starbucks. Kafeyga ayaa wuxuu ka kooban yahay celcelis ahaan 57 garaam oo sokor ah. Taasi waa in ka badan 2 laab xaddiga sokorta ee maalinlaha ee lagu taliyay. Marka si loola dagaalamay dhibaatooyinkaas, Starbucks ayaa mar kale isbeddelay. Shirkadda ayaa ku dhawaaqday xiritaanka 150 sanadkii 2019. Taasi waxay u muuqan kartaa hoos u dhaca saamiga shirkadda Starbucks, laakiin waa 3 jibaar tirada dukaamada ay badanaa xirto sanad walba. Shirkaddu weli way furi doontaa dukaamada, laakiin kobaca mustaqbalka ayaa diiradda la saari doonaa. Haddaba daawade, mowduucana maanta intaas ayuu ku dhan yahay. Wassalaamu calaykum.